السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسو دوادا muuqaalkeena maanta waxaana idinkugu sharxi doonaa dadka kusoo biiri doona seasonka lixaad ee taxanaha Gundhigii Cusmaan kuwaasoo qayb ka noqon doona markaasi seasonka soo socdo oo ina madadaali doono fadlan haddii channelka ku cusub tahay subscribe noo saar hore haddii noola joogtay daawada muuqaalkeena like garee aad iyo aad ayaan u mahadsan tahay intaynan guda gelin muuqaalka ka horatana ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadeerna si toos ah aynu guda galno muuqaalkeena maanta shaqsiga ugu horeeyana soo qaadan doona kaasoo qayb ka ah taxanaha Gundhigii Cusmaan seasonkiisa lixaad waa Ozgur Jivej jilaygana waad wada taqaanaan waxa uuna ka qayb ahaa markaasi taxaniya Albarsalan seasonkiisii labaad isagoona laadirka ahaa kuna matalay doorka markaasi Count Leon waadna wada xasuusataan jilaygan ayaana la sheegayaa markaasi in uu qayb ka ahaan doono markaasi taxanaha Gundhigii Cusmaan seasonkiisii lixaad kuna matali doono doorka markaasi abaanduula Byzantium laguna magacaabo markaasi Locus marka sideed u aragteen fikirkiina dhankooda comments-ka nagula wadaaga ninkanina hore ayaan u soo baranay taxanihii Albarsalan wacdarada uu ka dhigay iyo qaabka uu cagta ugu saaray markaasi Sultan Albarsalan haddana waxay iswajihi doonaan Mudane Cusmaan ma laga yaabaa markaasi sidii Albarsalan isku wajaheen in ay isku wajahaan markaasi Cusmaan mise kaleeto Cusmaan doorkiisa ayaa kor loo qaadaya sida lagu yaqaan Bozdag sida waxyaabaha ka dhigay waxyaabaha kalifaya taxanaha daawashiisa inay hoos u dhacdo waxa kamid ah markaasi in Cusmaan mar walba asaga guuleysta yahay xitaa wax yar in la xanuujiyo taa waa loo baahan yahay seasonada hore waxa xiisaha u yeeli jiro waxay ahayd markaasi in Cusmaan markaasi cadawgiisa cagta uu saari jiray isla mar ahaantaasna uusan ka awood yareen halka marka dambe tan cadawga markaasi Cusmaan uu dili jiray dadkuna waxay xiiseynayaan markaasi qof Cusmaan cagta u saara jilaygana sida Albarsalan uu cagta ugu saaray ugu dambeyn uu kaga taqaalusay ma laga yaabaa markaasi in Cusmaan sidaas ay dhacdo taasi fikirkiina dhankooda comments-ka aad nagula wadaagi kartaan aniga Bozdag ayaan aqaana taasi ma sameynayo jilaygana doorkii uu ku qaatay markaasi taxaniya Albarsalan oo kaleeto kama heli doono markaasi taxanaha Gundhigii Cusmaan jilaygan daadiisa haddii aynu eegno waa 43 jir waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1981 sida isaga u diiwaan gelisan jilayga xiga aanu soo qaadan doono kaasoo qayb ka ah markaasi taxanaha Gundhigii Cusmaan waa gabar taasoo lagu magacaabo markaasi Botshi Bose Kahraman gabadhanina waxay qayb ka soo ahayd markaasi taxanihii Uyanis Büyük Selçuklu kaasoo taxanihii lagu matala ahaa markaasi Melikshah ee Sanjar wajigeeda markaad aragtana waxa idinkugu soo dhacaya markaasi gabadhii ahayd markaasi Livia taasoo markaasi qayb ka ahayd taxanihii Uyanis Büyük Selçuklu waxayna ku matalaysay gabar Byzantiniyad ah haddana waxaa la sheegayaa inay qayb ka ahaan doonto taxanaha Gundhigii Cusmaan seasonkiisa lixaad iyadoona la rajeynaya markaasi inay ku matasho door markaasi Marwa El Tunay waxaana rajeynaynaa in ay ka mid noqon doonto markaasi qabiilka Mudane Cusmaan ama qabiil kale ay ka soo jeedi doonto kulli shakhsiyad muslim ayay matali doontaa siday u badan tahay da'deedana aad bay u yar tahay waa 28 jir taasi ka dhigaysa markaasi in ay baala ka yar tahay gabdhaha dhalinyarada ah ee taxanaha Gundhigii Cusmaan ku jirana waxa ugu yar markaasi baala marka laga soo tago gabadha Fatima lagu magacaabo xitaa baala waxaba ka weyn gabadhii Holovera matalaysay marka gabadhana waan soo dhaweynaynaa iyadana qayb ay ka noqon doontaa taxanaha Gundhigii Cusmaan wixii fikirkiina dhankooda comments-ka ayaad nagula wadaagi kartaan asxaabta oo aad ka qabtaan jilayga xigaano soo qaadan doono kaas oo qayb ka ah taxanaha Gundhigii Cusmaan seasonkiisa lixaad waxa lagu magacaabaa Hakan Orge ninkanina waa jilay weyn waana 39 jir waxa uu ka soo muuqday dhowr taxano kuwaasoo xitaa ay ka mid ahayeen taxanayaal uu Bozdag sameeyay sida taxanihii Mehmetchik kaasoo Soomaalida xaggeeda loogu yaqaan guusha islaamka lana soo fasiray taxane diini ayuu ahaa markaas wuxuu kaloo qayb ka ahaa taxanihii Uyanis Büyük Selçuklu ee Melikshah iyo Sanjar ayuu qayb ka ahaa 5 xalqadood ayuu meelaas kaleeto inuu qayb ka ay rajeynayna ama qaybta shanaad moo kaga soo biiray kulay si fiican uma xasuusto laakiin qayb ayuu ka ahaa filimkii lagu magacaabi jiray Turklar Geliyor Turkidi ayaa timid asagana qayb ayuu ka ahaa filim caadi ayuu kaas dadka badanana waa daawadeen way shaqadiisa ugu dambeysay hadda uu qabto ama filim aan ku xasuustaan waxa waaye filimkii lagu magacaabayay Aziz Mahmoud Hudayi ee soonkii soo baxay Bozdag uu sameeyay
uuna jilayay markaasi jilayga lagu magacaabo ninkii taxanaha guddiga Cusmaan ku jilayay Turgud Alab ayaa matalay. Turgud Alab jilaygaas filankii uu sameeyay soonka hadda la soo dhaafay soo baxay Ramadaanka loogu talagalay ayuuna qayb ka ahaa ninkaani. jilaygan hadda waxaa la shaacinayaa markaasi inuu qayb ka ahaan doono taxanaha guddiga Cusmaan seasonkiisa 6aad. waana uu ku soo biiri doonaa waxa uu asagana meesha ka qabtay inuu arki doono hadduu Ilaahay idmaayo. dhanka kale seasonka 6aad ee taxanaha guddiga Cusmaan waxaa qayb ka ahaan doono jilaygan lagu magacaabo Elkan Kizil Elmak. magaciisa qalad ugu dhawaaqin kala garamay muhiimsa ma aha. wajigiisa markaad aragtaan waad garanaysaa ninkaani taxaniyo Yanis Büyük Selçuklu waa ku jiray. abaandoole Bizanda ayuu matalayay isla mar ahaantaasna soo islaamay. way garabna wuxuu siinay markaasi Malik Shah ugu dambeyn xitaa magaciisa Cali ayuu u baxshay taxanaas qofkii daawada ayaa yaqaanay Seljuqiinta. dhanka kale wuxuu qayb ka ahaa hadii aad daawateen taxanihii Hayruddin Barbaros ayuu ku jiray isagoona markaasi laadir ku matalayay. gabadhii Luna la dhahay ayuuna la socday hadii aad xasuusataan isaga bedilay akhiran xitaa marka ninkan asagana waxa uu qayb ka noqon doona taxanaha guddiga Cusmaan ayuu qayb ka noqon doona seasonkiisa 6aad wuxuuna ku matali doonaa Abaanduule Magnus sida la rajeynayo. kulli Cusmaan ayuu ka soo horjeedaa magacan Magnus magac jira ma ahanba waa magaca kulli Kristaanka ila baxan sida rajeynayo. asagana waxa uu noqon doonaa dadkii ka soo horjeeda markaasi Cusmaan kana qayb ah markaasi seasonka 6aad ee taxanaha guddiga Cusmaan ayuuna qayb ka ahaan doona. jilayaal aanu naqaana ayaa badana markaasi hadda taxanaha guddiga Cusmaan ku soo biirayaan maadaama hore inuu arki jirno markaasi jilayaasha aynu naqaanay taxanaha guddiga Cusmaan ka baxaan inay gali jireen markaasi taxanayaasha sida Salaaxudiin iyo hadduu Ilaahay ku idmaayo Barbaros iyo Albarsalaan iyo haddana markaasi dad horaan u soo aragno taxanayaasha kale aan ku soo aragnay hadda ayaa markaasi qayb ka noqonaya markaasi taxanaha guddiga Cusmaan seasonkiisa 6aad. waxaan rajaynaynaa maadaama seasonkan uu yahay seasonka ugu dambeeyo Bozdag inuu iska qurxin doono khiyaaligana uu isaga fogaan doono taxanahana uu markaasi ku wadi doono taariikhda saxda ahayd. laakiin hadduu waxyaabo khiyaaliga ku soo dardaro seasonkan 6aad uma maleynaya markaasi inuu qurux badnaan doono taxanaha guddiga Cusmaan maadaama shacbiyad fara badan ay ku xiran tahay. Bozdagna waxaa la rabaa markaasi dadka inuu fiiriyo isla mar ahaantaasna iska soo qurxiyo taxanaha guddiga Cusmaan. haddeerna waxaa si toos ah markaasi u bilaabmay taxanihii guddiga Cusmaan duubistiisa. shalayta oo ahayd markaasi 11 bisha 9aad ee 2024 ayaa dib loo bilaabay. sida idinkaga muuqata shaashada aad ka arki kartaan taxanaha guddiga Cusmaan hadda shootingkiisa waa uu bilaabmay. 10 maalmo ugu horeysa markaasi bisha Oktoobar maalinimo Arbacadii ku soo aadeysay 3-4-5 meelahaas laga yaabaa inay ku soo aado taariikhda hadda aan imaan xisaabin ayaanu ku arki doonaa markaasi taxanaha guddiga Cusmaan inuu dib u bilaabmi doono hadduu Ilaahay idmaayo. kulli hadda wax badan nagama xigto 3 isbuuc meelahaas oo kale ayaa inaga xigto waana arki doonaa hadduu Ilaahay idmaayo maadaama 3 bil ka badan hadda dadku ay soo samraayeen hadda waxba ma harinba. fadlan haddii channelkan ku cusub tahay subscribe tii noo saar waana kaaga mahadcelinayaa. muuqaaladan inoo like gareeya channelkana kor ha loo qaado qaabka aad subscribe u saaraysaan markaasi aad iyo aad baan uga helay waadna ku maasantihiin intaanu ku kulmi doono muuqaalkiisa waxaan idinkaga tagayaa salaanta salaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.